muddo bil ah kadib soo gelitaankii ciidamada wadanka Kenya ee gayiga Soomaaliya si ay u baacsadaan shabaabka ayaa xogaga difaaca dalka Kenya ay sheegeen inay si toos ah gudaha ugu sii siqayaan dalka dagaaladu ay aafeeyeen ee Soomaaliya. TV-ga qaranka dalka Kenya ayaa baahiyay in deegaanka xeebta ah ee Ras Kamboni oo gabaad u ahayd burcadbadeeda Soomaalida ay iminka ay gacanta ku hayaan ciidamada dalka Kenya kuwaas oo si tartiib ugu sii durkaya magaalada dekada ah ee Kismaayo oo xarun u ah kooxda fallaagada Al-Shabaab. weli ma cadda inta howlgalka Kenya ee Soomaaliya uu qaadan doono, balse taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka Kenya ayaa sheegay in Kenya ay sii wadi doonto howlgalka ilaa dhamaadka. I once again assure Kenyans that we will complete the work and operation that we have begun inside Somalia. waxaan mar labaad u xaqiijinayaa dadka wadanka Kenya in aanu dhamaystiri doono shaqada iyo howlgalka aanu ka bilownay gudaha Soomaaliya waanuna sugaynaa xuduudahayaga inside Somalia and within our borders. madaxweynaha wadanka Kenya Mwai Kibaki ayaa sheegay in howlgalku uu khatartiisa leeyahay waxana uu ku dardaarmay in Kenya marnaba aysan fursad siin cadowgeeda. We must in particular remain vigilant at this time when we have waged an operation inside Somalia. waa inaynu si qaas ah u feejignaanaa waqtigan oo aanu howlgallo ka bilownay gudaha Soomaaliya si aynu ula tacaalno maleeshiyaadkan aan doonayn in qarankeena iyo gobolkaba ay hagaagaan. To deal with militant elements who do not wish our nation and region well. dawladda Kenya ayaa maalmihii la soo dhaafay bilowday hab diblomaasiyadeed oo ay ku doonaysay inay taageero beesha caalamka uga hesho howlgalkeeda ay ka wada gudaha Soomaaliya. Kenya ayaa waxa ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu baaqday inay fududeeyaan dirista ciidamo ka socda Midowga Afrika oo la geeyo goobaha Al-Shabaab laga saaray. Ra'iisul Wasaaraha Kenya Raila Odinga ayaa iminka waxa uu ku sugan yahay wadanka Israel si uu taageero ugu helo howlgalka ciidamada Kenya ay ka wadaan gudaha Soomaaliya. Raila ayaa la kulmay labadaba madaxweyne Shimon Peres iyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu si ay dawladda Israel uga taageerto Kenya joojinta weerarada argagixisada ee uga imanaya dhinaca Al-Shabaab. wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Moses Wetangula iyo wasiirka difaaca Kenya Yusuf Haji ayaa iyaguna sidoo kale ku sugan gobolka Bariga Dhexe, balse iyagu waxa ay tagayaan dalalka Islaamka sida Iran iyo Turkiga. Peace and stability are the cornerstones of our any development. nabadda iyo xasiloonida ayaa dhardhaar u ah horumar kasta oo aynu sameeyno. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la qorsheynayaa inay kulmaan si ay uga wada xaajoodaan eedeymaha loo soo jeedinayo dalkaasi badda casaaran ee Eritrea oo lagu eedeynayo inay hubaynayso Al-Shabaab. Cabdirasaaq Cismaan Bulqaas, TV-ga qaranka Soomaaliya.